iyadoo aynu ognahay halka ay marayso hayaanka aadamuhu ugu jiro noloshani casriga ayaad maalin walba arkaysaa waxyaabo ka yaabinaya arrimahaasi oo ay daaha ka rogayaan cilmi baarayaasha dunida wadamada Belgiumka Talyaaniga Turkiga Faransiiska iyo Greek ayaa noqday kuwa si weyn loogu farsameeyo caanaha dameeraha kuwaasi oo loo isticmaalayo cabitaano iyo waxyaabaha macmacaanka iyo in laga sameeyo labeenta caanaha dameeraha saabuunta iyo waxyaabaha kale ee la isku qurxiyo kuwaasi oo xataa lagu barxo laguna daro maandooriyaha alkohol halka la tiray caanaha dameeraha ayaa korsi kacaya isagoo maraya $16 wadamadaasi aynu kor ku soo sheegnay wadanka Talyaaniga oo noqday muddooyinkii ugu dambeeyay mid si weyn loogu dhaqdo dameeraha ayaa ku sii socday in qoys kasta oo ku nool dalkaasi uu dhaqdo dameeraha si ay u isticmaalaan hilibka iyo caanaha dameeraha wargeyska Telegraph ee ka soo baxa magaalada London ee cariga dalka Ingiriiska ayaa ka hadlay arrintani ayaa sheegay in cilmi baarayaasha ka tirsan jaamacadda Napoli University ee dalka Talyaanigu ay daaha ka rogeen arrin cajiib mudan arrintaasi oo ah in caanaha dameeraha ay ku jiraan faa'iidooyin badan oo xagga isku daaweynta ah iyo in waliba loo isticmaalo cabitaan ahaan kuwaasi oo ay sheegeen cilmi baarayaashu inay si walba uga faa'iido badan yihiin caanaha looda cilmi baarayaashu waxay kaloo sheegeen in caanaha dameeraha ay ku jiraan sokor badan iyo dufanka oo ku yarma iyo waliba maadada calciumka ay lafaha dhisto oo ay sheegeen inay ku badan tahay caanaha dameeraha oo la sheegay inay ku yar tahay maadada cholesterolku waa dufanka caanaha ku jira ayaa ay sheegeen inay ka hortagto cudurro badan oo ku dhaca wadnaha cilmi baarayaasha ka tirsan jaamacadda Napoli ee dalka Talyaaniga waxay kaloo sheegeen in caanaha dameeruhu ay tayo ahaan iyo waxtar ahaanba ay aad ugu dhow yihiin kuwa hooyada kuwaasi oo si weyn wax uga taraya carruurta xasaasiyadda ka qaada caanaha looda cilmi baarayaashan oo daraasadda ku soo bandhigay shirweyne Yurub ah oo ka dhacay dalka Turkiga isla markaana lagaga hadlayo waxtarka caanaha dameeraha ayaa si weyn la isula qaatay in la dhiirigeliyo oo la dhaqdo dameeraha haddaba tan iyo markii ay soo baxday cilmi baaristan tilmaamaysa faa'iidada ay leeyihiin caanaha dameeruhu ayaa ay bilaabeen bulshooyinka ku dhaqan wadamada Greek, Belgiumka, Faransiiska, Turkiga iyo Talyaaniga oo isagu foolaad u ah dhaqashada dameeruhu wadanka Talyaaniga waxa uu isagu bilaabay in gabi ahaanba ay caanihii looda ee ay bulshada reer Talyaani cabi jireen ay ku bedelaan kuwa dameeraha iyagoo isticmaalaya waxyaabo ay ka mid yihiin cabitaanada hilibka dameeraha iyo waxyaabaha macmacaanka ah ee ugu caansan yahay buskulka loo yaqaan oralatiga ee lagu farsameeyo warshadaha dalka Talyaaniga labeenta caanaha dameeraha ee lagu daro sharaabka ice creamka loo yaqaano ayaa iyana dabaqabsi iyo dabalaalan ka noqotay wadanka Talyaaniga wadanka Faransiiska oo isagana warshadihiisa sameeyo waxyaabaha macmacaanku bilaabeen farsamaynta xalwada buskulka iyo keega laga sameeyay labeenta caanaha dameeraha iyadoo halka kiilo sii socdo $1,250 iyadoo aynu ognahay halka ay marayso hayaanka aadamuhu ugu jiro noloshani casriga